أصدق وحشي قف كمان of the match Algeria نقطة وحسو لسان جبرتيس أو بروسيس دقن طبني لحد سنة جد مركا أنا ككونغو جول كوكوان مركا كدلني صاحب كي قديني محمد داهر أصدق وحو أورد بشير أصدق قعدت كونغو تاجي أصدق وحشي جبرتايدي الرحمن الرحيم هذا ugu faraxsanahay kulankan aan ku soo dhaweynay wiilkeena waxa weeye Ocean Star asaga haduusan ahaan leen goolkaas oo maxaa ku raadaay maana dhalin lahayn maxaa ku raadaay aan ka dhalinay Congo waxay ku tusaysaa ciyaaryahanada markay ku soo baxaan academy oo ay helaan bay'ad wanaagsan in muhiimiyada maxaa ku raadaay ay leedahay ee meesha ka cadahay oo loo baahan yahay ciyaaryahanada diyaarsan oo maskaxaan laga soo diyaariyay wiilasheenana waxaan leenahay dhammaantood way aqli badnaayeen si fiican bay noo mateleen anaga ka jaalid ahaan as ciyaartoy hore ahaan we proud of them waxay qabteen waxay ahayd unbelievable massive ahayd wado cusub bay noo fureen hadda waxa ka dambeeyay maxaa ku raadaay dhiirigelinta way iska cadahay oo waxa leeyahay horey ugu soo qayb gashay you have done it marka waxa weeye aad aan ugu faraxsanahay shucuurteena wada kacsan tahay reer Norway oo dhan waan soo dhaweynaynaa in maxaa ku raadaay xiriirka ay wadadan qaadeen bismillaahir rahmaanir rahiim anigu Ilyas Cabdi Maxamed aad bay farxad geliyeen maanta inaan ka soo qayb galo Yaasiin Cabdiqaadir Cabdiraxmaan xalfadiisa oo maanta ciyaareen ka qayb galaan under 17ka waxayna tusinaysaa dhiirigelin waxayna tusinaysaa awood balaaran ka jaalid ahaan kan Soomaali ahaan waa arrin farxad gelinay dhalinyarada u baahan tahay mar walba in lagu awaadgulo waxyaabaha ay soo qabteen horumarka si ay ku gaari lahayn horumarkooda insha Allah waxaan rajaynayaa tan iyo mid ka balaaran inay ma doonto guushan aan gaari doono haddaan garba isqabsano isboortiga Soomaaliya xaalad kala duwan soo maray maantana xaaladeedu ku jira markaan waxaan gaari doonaa tan iyo wax ka sii wanaagsan insha Allah waxaan rajaynayaa sidaan si wanaagsan ma doonto hadii la ragana wallahi ciyaar ahaan waxba difference uma dhaxeeyo laakiin waqtiga kala duwan jaanisyo badan oo annaga waqtigan aan helin maanta waa jira aaladaha adduunka horumar oo kala kamida aragtida caalamka geeska gees gaarayso dadaalka ay muujiyeen dhalinyarada ka xiriirka ahaan waxaan meeshan ugu hambalyeena oo mahadnaqa u dira oo farxad aan u qaybsanaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa horumar wanaagsan wada shaqeyn dal iyo dibadba intaba insha Allah anagana waxaan noqon doonaa dadkii garab ku siiyo dhalinyarada ku nool Norway oo u baahan fursadan in mid lamid inay helaan waxaan ka shaqeyn doonaa aniga iyo Ciise iyo Cabdixamiid iyo dhamaan ciyaartoydii soo martay xulka qaranka Soomaaliya doo ilaahay ka noqon ugu horeyntii waa mahadsantiin Nuursom waxaan idinkaga mahad celinaynaa shaqada aad u haysiin bulshada Soomaaliyeed ee ku nool qaasatan wadankan Norway maanta halkan waxa isugu yimid ciyaartooy badan la jamo odayaal dhaqameed bulshadii Oslo ee Soomaaliyeed waxaan halkan ugu imaanay in ma aragtay aan guubaabino walaalkeen Yaasiin wiilkeena Yaasiin iyo dhammaan bulshada jecel isboortiga dareenkayga horta halkan kuma soo koobi karo markii aad aragtid dad aad isku lood aheedeen iyo kuwa ka dambeeyay oo hal meel isugu yimid welina isu muujinaya jaceylkaas oo ka yimid dhanka isboortiga waa wax yaani qof waliba bini aadina oo ku dareemi karo wax zaa'id ah dadkaas la mid ahay waxaan jeclahay aan ku daraa mar waliba maadaama aan ku noolnahay caasimadii wadanka Norway ee aanan heesano Soomaali badan nagu taageeri karto inaan caruurteena caawino haddii ahaan leed dhaqan ahaan haddii ahaan leed sports haddii ahaan leed dalaan wax waliba aan ka caawino dadkeena Soomaaliyeed inaan gacmaha isqabsano Nuursom aan dhinac istaagno dhalinyarteena isboortiga soo baxay aan garab istaagno juhdi aan ku bixino wadankan dhaqaalo oo leeyahay laakiin dadkii waxay u baahan yihiin guubaabo in la isku keeno la isfahansiyo si bulshadan aan uga dhaxelno bulsho ka badan tii hore waad ku mahadsantihiin Nuursom mar labaad iyo mar saddexaad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaalida Norway kulanka maanta u sameysay Yaasiin runtu waxa kulan aad u wanaagsan dhammaan bulshadii intii la isku keeni karo waa la isku keena maanta aad loo soo dhaweeyay dhiirigelin wanaagsan oo ahayd taasina waxay tusaale fiican u tahay runtii haddii ciyaartoy kale ay soo baxaan ama dad kale ay yimaadaan oo kubadda cagta Soomaaliya ku kordhi kara in sidaas oo loo dhiirigeliyo dhammaan hadda maamooyinka inta jooga waalidiinta inta joogeen dadka dhammaan inta ka wada hadlo dhan waxay muujiyeen in runtii ay diyaar u yihiin in la helo
toban yaasiin la mida oo matasha xulka qaranka Soomaaliya marka taas waxay muujinaysaa runtii in bulshada Norway degan ay diyaar u yihiin inay caawiyaan kubadda cagta ee Soomaaliya ama ciyaaraha kale haddii jiraan ciyaartaas oo kale ah yaasiin qofkii ugu horeeyay halkan ka ciyaar maaha Norway ka ciyaar maahan sida hadaa sheegtaba macnaha waxa jira maxaa la caday wiilkiisa jiray oo hore u soo ciyaaray xulka qaranka u soo ciyaaray Man City u ciyaaray kooxo Norway kiina u ciyaaray inkastoo laakiin qaabka hadda uu macnaha yaasiin uu muujiyo kale heerkaas kul uusan gaarin oo macnaha sida adduunyada ula qabsado macnaha hal mar uu helay macnaha marka la fiiriyo aragtida Soomaalida iyo qaanka uu yahay inkastoo kale uu helin inkastoo laba xilli ay kala ahaayeen haddana xilligan kale waxa muddo Soomaalida inay aad ugu baraarugsan Soomaalida marka runtii Norway aad ugu hambalyeena ugu dhiirigelina guusha ay macnaha ay ciyaartoyda uu keenay isla markaana ay diyaar u yihiin inay dhiirigeliyaan ciyaartoy kale oo la mid ah haddii soo baxaan yaasiin ama yaasiin oo kaleba waa mahadsantahay Saciid dareenkayga aad iyo aad u kacsan yahay walaalkay wiil annaga reer Norway haddaan nahay matalaayo inuu meesha uu xulka qaranka under 17 uu matalay waa wax aad iyo aad ma aragtay niyaddeena kor ugu sii qaadayo annaga reer Norway haddaan nahay sportska mar kastaba dad aad iyo aad ma aragtay u taageera ahayn insha Allah arrintan hadda oo dhacdayna waxay ma aragtay dhiirigelin sii gelinaysaa dadaalkii hore noogu yaqaanay inaan meesha ka sii wadno marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta meeshan ka soo qayb galo waa shawiil baalla aad ayaa ugu faraxsanahay kulanka maantay soo qabanqaabiyeen guddiga sportska dhammaantood gaar ahaan midnimo kabtan ciise iyo dhammaan akhyaarta kale xiriir kubadda cagta waxaan aad ugu faraxsanahay jawiga maanta siduu noogu dhacay haddaan nahay reer Norway waxaan aad ugu faraxsanahay musawirka uu ka bixiyey dhalinyarada da'da yar under 17ka yaasiin cabdiqaadir waxaa kale oo hambalyeenayaa waalidkiis ku soo dadaalay runtii waxaan dareemayaa farxad gooni ah maadaama yaasiin uu aan isla deganahay waddanka Norway إن شاء الله دولا يرادو دليرada kale oo yaasiin oo kalena waxa leeyahay qudaysada yaasiin waahileysa jaaniskiina waad soo arkirtay wadankiini waad ku soo ciyaari kartaan wax badanna waad maaragtay ka soo baran doontaan aad ayaa ugu mahad celinaya Nuursom oo soo qabanqaabisay barnaamijkan iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha maanta waxaan joognaa soo dhaweyntii yaasiin cabdiraxmaan lagu qabtay magaalada Oslo aadna Soomaalida jaaliyadda uga soo qayb galeen waxay ahayd dhiirigelin loo sameeyay yaasiin maadaama ay Soomaalida jaaliyadda ay qorsheeyeen inay ka soo qayb galaan soo dhaweyntan marka waxaa loogu sameeyey magaalada Oslo ayna ahayd soo dhaweyn aad u qiimo weyn uuna ka qayb galay qaranka 17 jirka oo hadda Algeria lagu dheelayay asagoo matalaya xulka qaranka Soomaaliya kana yimid waddanka Norway maadaama anaga reer Norway nahay aan u sameynay soo dhaweyntan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo gudoomiyaha xiriirka علي شينة وأصعدنا معنيه قيب وين كقاطي حرير maadaama ay xiriir cusub yihiin oo asaga hadda gudoomiye u noqday doorashada hadda u dambeysay waxaa kaloo aad asagana ugu mahad celinaya gudoomiye ku-xigeenka Cabdirashiid Cabdulla Maxamed asagana qayb weyn ka qaatay ciyaartooydii dibadda ka imaanaysay iyo xiriirka inta badan ka shaqeynaysay gudiyada kala duwan ayakana ay muujiyeen inay ay tahay horumar cusub ugu tala galeen inay u sameeyaan ciyaartooyda qurba joogta iyo ciyaartooyda waddanka joogan marka anagana aad inoo farxad gelisay anagoo macnihii Norway joogno na tusisayna macnihii waji cusub oo furmay anagana aad ugu mahad celinayna wada shaqeynta fiican ee sameeyeen xiriirka waxaa sharaf ii ah inaan ka soo qayb galo kulankan loo sameynay yaasiin oo ka soo laabtay dalkii Algeria oo ka qayb galay ciyaaraha yaasiin wuxuu ka mid yahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway runtii xafladan ama kulankan soo dhaweynta wuxuu u yahay dhiirigelin dhalinyarada kale Soomaaliyeed ee halkan waddanka degan ayaga oo fiirsanaya wadada uu yaasiin uu maray oo kale inay maraan isla markaana xulkooda qaranka ay matalaan
waana runtii wax loo baahan yahay ahna in lagu dhiirigeliyo Yaasiin shaqada adag uu soo qabtay iyo matalaad uu soo matalay xulka qaranka Soomaaliya ka Ismaaciil ahaan runtii waa aad ayaan ugu faraxsanahay inkastoo aan soo dhaafay waqtigii ani aan matalay xulka qarankayga laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan degan ee kubadda ciyaarta waxa u furan jaanis ay qaranka ku matalaan xiriirka Soomaaliyeed ku mahadsan yihiin Macallin Nuur Amiin jaanis keesiyaan kulankan wuxuu ahaa kulan lagu taageeray Saciid Yaasiin aan dhahay waa kulan dhiirigelin u ah dhalinyarta kale oo soo baxayso ama qarankiina u dadaalaan oo sharafta Soomaaliya keenan ay rabaan Yaasiin waxay u ahayd farxad weyn badan taasna qof kasta dareemi karo dhalinyartii Yaasiin kaliya mu hambalyeynay maanta waxaan u hambalyeynaa kuwa kale oo soo gaarsiiyay Macallin Nuur Amiin iyo walaalaheen kale meeshasna soo gaarsiiyay kaaf markii ugu horeysay وسلامتها walaalkayga Nuurson Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Cabdimaalik Cabdiraxmaan Cabdiqaadir waxaan ahay Yaasiin walaalkiisa ka weyn runtii maanta xaflad qurux badan ayaa noogu soo idlaatay caasimadda dalka Norway ee Oslo runtii dad badan oo qurux badan ay ka soo qayb galay oo ku dhiirigelinaya Yaasiin inay maxay hor u sii socdo runtii aadna waxa ugu mahadnaqaynaa meeshan gudoomiyaha xiriir kubadda cagta Cali Shiina iyo runtii jaansiga uu furay dhalinyarta oo Yurubta ku koreyso inay helaan inay xulkoodu ciyaaraan aadaan ugu mahadsanaa maanta aadaan ugu mahad celinayna dadkii ka soo qayb galay kulligooda anagoon dheera qof iyo qof insha Allah marka waxaan idin rajaynaynaa insha Allah maxay ahayd khair iyo barwaaqo ama sitiin